السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله شرفت لي سو دوادا كسو دوادا برنامج عصب ومقعيس اللي يراهدو ميناس هيلث. ميناس هيلث waxaan idinku talagalay inaan idinku soo gudbiyo waxyaabo badan oo ay ka mid yihiin caafimaadka oo gabdhaha Soomaaliyeed, dumarka Soomaaliyeed quseeya oo ku saabsan waxyaabaha toxic ah ama waxyaabaha aan guriga ku isticmaalno oo aan anaga warba u hayn. maanta barnaamijkeedii waxaan kaga hadlayaa make up-ta sidaad ku aragtaan subtitle-ka digniin oo ah oo aan uga digayo gabdhaha Soomaaliyeed. digniintuna waxay tahay waa make up-ta guriga ku taala inaad iska daadiso. sababtu maxay tahay? sababtaan u leeyahay make up-ta guriga ku taala iska daadi maxay tahay? walaalayaal, sidaan ognahay haddaanu nahay gabdho, haddaanu nahay dumar, waxaan isticmaalnaa waxyaabo la isku qurxiyo. maasha Allah, quruxda waa wax fiican, waa waxaan u noolnahay. maasha Allah, qofka hadduu is qurxiyo waa qof happy ah. quruxda waa happiness. qof kasta qurux Ilaahay buu siiyey, quruxda Ilaahay baana siiyey. waan wada qurxoonnahay, Soomaalideen aad baan u wada qurxoonnahay. quruxda waa tan Ilaahay ku siiyey. marka waxaan rabaa inaan idinkala hadlo make up-ta. walaalayaal, saad ogtihiin make up-ta expire ma laha. make up haddaad soo qaadato sanad ay dhacdo kuma qorna, laakiin mala socotiin make up-ta expire bay leedahay. expirekeedu waa goorma? haddaba aniga idin sheegaya. make up expirekeedu waa 1 sano. sanadkaasina waa laga bilaabo maalintaad make up-ta aad furto ood furka ka qaado ama aad boxka ka soo bixiso oo aad isticmaasho ayuu bilaabanayaa. taariikhda u bilaabanaysaa taariikhdaas oo ah hadday 1 sano ka soo wareegto. for example ka soo qaad maanta waa October-tan ayaad make up soo gadatay ood furtay ood isticmaashay, meel baad iska dhigtay. make up-taasi dib dambe umaad isticmaalin. ka soo qaad maxaa dhacaya? waxaa laga yaabaa inaad haddana u baahatay oo sanad kadib aad haddana make up-tii aad weli isticmaalaysid. make up-taasi waxay ku keeni kartaa dhibaatooyin badan oo aad u kala duwan oo halkan kusoo koobi karin. laakiin waxaan idin sheegayaa walaalayaal, cudurrada qaarkood in ay noo keenaan waxyaabo aan anaga soo gadan lacagteena kusoo gadanay. marka waxaan rabaa programkeygii inaan focus gareeyo inaan waxyaabaha sunta ah ama toxiga ah ee aan guryaha ku isticmaalno badanaa ayaan rabaa inaan idinkaga digo. anigu dhakhtar ma yihi, laakiin waxaan ahay qof research sameeyey oo waxyaabo badan research ku sameeyey oo aniga nafsadeydii aan research ku sameeyey oo aan ka faa'iiday waxyaabo badan aan isticmaali jiray oo aan ogaaday inay caafimaadku ay aad wax uga dhimayaan oo aan ku caafinaaday. markaasaan sidhay walaalahaaga ugu faa'iidee oo u sheeg iyaguna. sidaas darteed ayaan walaalayaal idinla qaybsanayaa waxyaabo badan. marka waxaan rabaa inaad channelkayga la socotaan. insha Allah waxaan isku dayaa inaan video badan aan duubo oo aan idin soo gudbiyo oo anoo ka hadlaayo waxyaabaha sunta ah ee guryaha ku isticmaalno oo ay anaga ku xanuunsanahay laakiin aan war u haynin. sida hadda make up-ta oo kale. make up way dhacdaa, waxayna dhacdaa after 1 year. taas la socda walaalayaal, iska tuura haddii aad haysataan. waxaa laga yaabaa make up sanadkii hore, sanadkii kasii horeeyay make up-yo oo aniga xataa way igu dhacday taas oo kale. oon make up aan haystay 2 sano ayaa laga yaabaa inaan iska marsado oon markii dambe aan ogaado inay maaragtay ii keento problemo, madax xanuun, indhiso, korka oo maaragtay fimankaas oo baxa oo kale. marka asmada oo kale make up-ta dhacday waxay keentaa asmay keentaa, neeftay keentaa, waxay keentaa muxuu ahaa finanka wejigay keentaa, waxay keentaa waxyaabo badan. infection bay keentaa. marka inflammation bay keentaa, boogag bay keentaa. inflammation jirka oo wejiga oo ku gaduuta oo wejiga gaduud ku noqda oo kale, indhisada kale. marka waxyaabo badan oo caafimaadka u daran ayay ku keeni kartaa. marka Soomaalida waxaan la qaybsanayaa walaalayaal inaad iska joojisaan make up-yada guriga idin yaala oo sanado yaalay inaad iska tuurtaan oo aad soo gadataan make up cusub. make up-ta cusub aad soo gadateen aad la socotaan waqtiga aad furteen. haddii ay sanad ka soo wareegtana aad iska tuurtaan. waayo waxa ku dhasha wax la yiraahdo fungus waa waxa ugu xun oo bani aadanka aad ugu daran yahay. walaalayaal, iska jira, ka digtoonaada. fungus wuxuu galaa waxyaabaha expire-ka noqda. hadda ka soo qaad
bariis ayaad banaanka dhigtay sanad hadduu kasoo wareegto bariidkaas sanad iska dhaafay 2 week hadday kasoo wareegto bariiskaas wuxuu noqonayaa wax cudurku keeni uu noqonayaa fungus wax la dhahaa gala oo hadduu bani aadanka uu uriyo ama cunitaan iska badaaya xataa hadduu uriyo uu qofkaas ku dhiman karo marka make uptu kama duwana chemical badan baa lagu daray oo waxaa expireka ka reebta laakiin goormay ka reebtaa waa just 1 year sanad ayaa loogu talagalay make uptu inaad haysato sanad kadibna aad iska tuurto ma arkaysid funguska ku dhasha ma arkaysid oo sida cuntada oo kale loo arko cuntada markuu fungus ku dhashto waa la arkaa cuntada way isbedeshaa kalarkiiba isbedelo oo madow bay noqotaa sidaas lagu ogaadaa inuu fungus ku galay laakiin make up isma bedesho waa laga yaabaa inay urteedu isbedesho laakiin kalarkeedu inuu isbedelinayaa laga yaabaa macnaheedu ma aha expire ma noqonin iyadoo expire ah ayay kalarkeena lahaan kartaa marka walaalayaal iska jira ku xisaabtama sanadkii ama bishii aad gadatay si aad u ogaato xusuuso ama xataa meel ku qoro caafimaadku waa wax muhiim ah laakiin waa inaan ka taxadirnaa waxyaabaha qaarkood walaalayaal oo ay ka mid yihiin make upta marka barnaamijkaygii waa kii ugu horeeyay fiidiyihii ugu horeeyay ee aan duubo insha Allah fiidiyo badan ayaan soo duubi doonaa fiidiyaha ku xiga kan waliba very interesting ah ayaad arki doontaan insha Allah fiidiyo kan ku xiga fiirsada marka fiidiyo kan ku xiga ayaan si fiican idinku soo gudbin doonaa waxyaabo aad xiiso u leh oo aad ka heli doontaan insha Allah taala marka walaalayaal channelkayga subscribe iyo saara marka haddaad rabto inaad waxyaabo badan aad ka faa'iideysato saaxiibadaada la qaybso aad baad ugu faa'iidi doontaan waa waxyaabo aan anigu ku faa'iideysaan idin sheegay dhakhtar mayhi laakiin research badan baan sameeyay waxyaabo badan oo researchka ku ogaaday ayaan idinku soo gudbin doonaa si aad idinkuna aad uga faa'iideysataan waayo aniga waan ku faa'iiday dad badanna waa uga faa'iideeyay marka waxaan ku aansaday inaan Soomaalida aan la qaybsado waxyaabaha aan ogahay insha Allah